Sobe waa magacii hore ee loo aqoon jiray halka maanta loo yaqaano isgooska 14 Oktoobar. Kuma helin magacan guul ay si wadajir ah u gaareen dhalinyaro Soomaaliyeed, balse waxa uu magacan ku muteestay dhimashada maati aan waxba galabsan oo halkan lagu gumaaday. 14 Oktoobar sanadii 2017 maalin Sabti ah, saacaduna ay dul taagneed 3 galabnimo iyo qadar daqiiqada ah, ayaa magaalada Muqdisho iyo daafaheeda waxaa gilgilay qarax ka dhashay gaari xamuul ah oo maadooyinka qaraxa lagu soo raray. Qaraxa ayaa dhacay xilli uu isgooska Sobe aad u mashquul badnaa, waxaana ka jiray saxmad weyn oo dhanka gawaarida iyo dadka ah. Hareeraha wadadana waxaa buux dhaafiyay dad warata ahaa iyo kuwa socday. gaariga xamuulka ah waxa uu ka koobnaa 350 gram oo ah walxaha qarxa oo isugu jira kuwa guryaha lagu sameeyo iyo kuwa ay isticmaalaan ciidanka militariga. gaariga xamuulka ah ayaa muddo kooban lagu hayay bar control, balse waxaa loo ogolaaday inuu sii socdo. kadib waxaa joojiyay saraakiisha ammaanka iyadoo ku xayran saxmadda gaadiidka. markii la doonayay in la baaro ayaa darawalkii oo degdegay waxa uu ku dul dhacay derbi, kadibna gaarigii ayaa qarxay. dhagaxani ugu dambeeya waa taalada 14 Oktoobar oo ummadda Soomaaliyeed ugu aastaysan maalin madow. maanta oo kale sanadkii 2017 waxaa halkan lagu gumaaday maati aan waxba galabsan, kuwaasi oo isugu jiray ganacsato u badneed kuwa warata ah, arday caafimaad baranaysay, wariyaal, dad mutadawiciin ah, caruur, waayeel, dhalinyaro intaba. saamaynta qaraxa waxa uu sii dheeraa booyad shidaal oo meel u dhow tiilay, taas oo sababtay dab aad u weyn. dad ka badan 500 oo qof ayuu galaaftay noloshooda qaraxii halaaga ahaa ee Sobe. tiro kale oo 300 kor u dhaafaysa ayaa dhaawacantay. waxaa weli la yahay dad kale oo ku sugnaa goobta qaraxa uu ka dhacay, raq iyo ruux intaba, balse waxaa lagu tiriyay dadkii ku baxay musiibadii Sobe. qaraxa ayaa kala kaxeeyay boqolaal qoys oo ay ku waayeen qaraawo iyo asxaab. ku dhowaad 160 qof oo meed ah oo aan la aqoonsan karin ayay dawladdu aastay maalin kadib markii uu qaraxu dhacay. inta badan dhismayaashii ku yaalay isgooska Sobe ayaa dib u dhis lagu sameeyay, balse 5 sano kadib waxaa weli qaybo badan qariyay burbur, waxaana tani ay muujinaysaa burburka uu geystay qaraxa. qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa qaraxa Sobe oo radio Hiigsa la hadlay ayaa ka sheekeynaya waxa ay indhahooda ku arkeen. markii wax dhacaan hal mar meel laga yidhi ugu gudba Soomaa aniga markii waa jiifay dabcan guriga ku jiifay ugu soo dumay ka bacdina 2 saac ama 1 saac kamida waa rumaysan lahayn waxaan qarax yihiin qiyaamiin u dhacaan boodaya marka qaar waxyeelkii ku dhintay in ka badan meeshaan ani wax badan ka shaqeynaa soo baanahay ku dhawaad 100 qof oo asxaab ah halkan ay ku waayeen. marka alxamdulillah wax walaas ma jiraan hadda waa laga soo qabtay. barayaal qaraxii Sobe aniga goobjoog aniga aan u ahaa maanta maaragtay dad walaalihii aniga aan aqaano oo saaxiibadeyda meeshan ku dhamaadeen. ilaahay kuma darnaaday 25 qofood malaha aniga aan ka xisaabay ilaa hadda meeshan aan fadhiisto waan soo xasuustaa caloosha ay hurtaa. marka ilaahay kuma darnaaday meesha aniga alaabihi aniga aan ku shaqaysan jirnaa hada ilaa hadda waa kul asanahay. wax awood hadda aan ku godan ilaahay baa awood iska leh, awood hadda aan ka godan ma haysano, waa ku shaqo weynay ilaa hadda qaraxas 5 sano kadib qarax 5 sano laga joogaa. marka alxamdulillah rabbil caalamiin meeshan dad oo masaakiin saaxiibada aad uga dhamaaday. marka alxamdulillah rabbil caalamiin. 14 Oktoobar markaas waa yaraani waxaa ku jira masaajidka, markaas anoo soo baxay masaajidka soo baxay intuu soo socdo qaraxii inta ka dhacay hawadeen inta maqaadida jirtay. markaas qaraxii markuu dhacay wax xanuun badan oo lama filaan ah ayaa ku kulmay. inuu qaraxa dhici doono midaas ma ogeen, mid aan la filan karin iyo xanuun daran iyo dadka mid aan loobi karin ayay ahayd midaas.
5 sano kadib maanta waxaan warbixinta qarxii isgooska Soobe tabinaynaa iyadoo dhammaan dadkii ruuxdooda ku waya halkan ay yihiin dad aan weli cadaalad helin mana jirto cid dusha u ridatay mas'uuliyadda qarxii ugu weynaa abid ee Soomaaliya ka dhaca dawladda ayaa dhankeeda ku eedeysay kooxaha kale ee ka soo horjeeda balse al-shabaab iyo daacish ayaa dhan isaga riixay eedaasi xanuunkii ka dhashay xasuuqii Soobe maalmo cambaarina kadib waxa uu la kaliyoobay heerihii ardaydii ay u haweenayeen laga xasuuqay waalidiin ilmihii ay ku soo tabceen rafaadka laga dilay ayaa saskii ku tagay oo weli miirla haween raggoodii laga dilay ayaa la dhibaatoonaya agoontii caruur aabbayaashoodii halkan ku waayey ayaa diifta agoonnimo iyo duruufta Muqdisho maanta miranaya dhammaanna wax cadaalad ah ma helin haatana looma hayo Abuukar Maxamed Keenan warbaahinta Higsi Muqdisho